waxaa subscribe gaaray 268,500 oo qof. waxaan yeeshay saaxiibo badan oo adduunka meelo kala duwan joogo oo jacayl igu beeray. Baby, I'm about to pull up. Just give me an hour. Man, I got me a cute thing that's smart, cause knowledge is power. What up, my best beautiful people. How you guys doing? Another beautiful day. Yes, it's good to be back, my beautiful people. Ad banidin salam adduunka beerar baa ka joogta dadka adduunka jeclay, my beautiful people. Yes, serious. waxa laga yaabaa asxaab badan maanta inay la yaabiyeen oo kiyaalana soo xortay. laakiin daadana waa socotaa, technology-gana waa sii horumaraya day after day. Anyway, waxa laga yaabaa maanta barnaamijkeena inay idiga wada suugaysay raashika, laakiin aad baan ugu xumaa maanta waxa way maalin murugo leh. inta jecel fanka Soomaaliyeed ama entertainment-iga markay ay timaado fiidiyoyada quruxda badan. waxaa jira nin dhalinyaro oo aan aad u daawo jiray fiidiyodiisa oo anigana jeclay, oo dhalinyaro badanna jecleed fiidiyodiisa qaabka u dawo oo aad daawataan maalin walba, aad jeceshihiin fiidiyada soo saaro. qaarkiin laga yaabo inaad daawanaysaan, you never know. ninka dhalinyarta wuxuu inoo ahay role model oo runta marka laga hadlo dhalinyaro badan ay aad u jecesayaan. haddaba maxaa ku dhacay? maxaa sababay go'aankan inuu qaatay? intaan gudub magaciis idin sheego waxa la yiraahdaa Hatuf Cabdi, janaalkiisana waxa la yiraahdaa Hatuf Digital Studio. Hatuf sa wada garanaysaan boo waan dhalinyaro maasha Allah, ani aqoon u mari, laakiin fiidiyodiisa aad baan u jeclahay. waana ninka dhalinyarta oo fanka Soomaaliyeed markay timaado fiidiyo qurux badan aad iyo aad heer sare u gaarsiiyay. haddaba maxaa sababay go'aanka uu qaatay? warqad dheer uu soo qoray, warqadaas oo ku jiro mid go'aan la iyo mid maxsalaameys isugu jiraan. haddaba warqadda wuxuu ku soo qoray page-kiisa Facebook community, qaybta bulshada loogu talagalay wax in lagu qoro. warqadda bal aan u guda galna akhrina wuxuu yiri: assalaamu calaykum saaxiibayaal, waxa la soo gaaray waqtigii aan ismac salaameyn lahayn. 6 sano ayaa ka soo wareegatay markii u horeysay ee aan music video soo dhigo YouTube. nafteedii aniga dagaal baa naga dhaxeeyay ilaa ay maalintaas. muddadaas gaaban fiidiyoyada aan duubo waxa la daawaday in ka badan 130 milyan oo daqiiqo. wow, congratulations my brother. waxaa subscribe gaaray 268,500 oo qof. waxaan yeeshay saaxiibo badan oo adduunka meelo kala duwan joogo oo jacayl igu beeray. guulahaas iyo guulo badan oo aan halkan ku soo koobi karin waxa ii dhiibeen maalinba maalinta ka sii dambaysa. dama warqadii waxay ku soo biishubatay ismac salaameys. aad baan ugu xunaa walaalkeen inuu si fudud nooga dhex tago annagoo jecel oo aad iyo aad fiidiyodiisa aan u daawano. laakiin warqadda markii la aqriyo waxaa kaaga soo dhex baxay su'aalo badan oo aad isweydiinayso, qof walba oo aqli la isweydiinayo. why oo retirement-igan u qaatay? waa su'aal. haddaba retirement-iga qofka markuu qaadana labo Hatuf kale waxaan dhigi karnaa labo option ku qaadan kara retirement. mid waa duqnimo, qofka markuu duq yahay oo retirement qaadanaya. mid kaleeto Hatuf oo kaleeto waa mid inuu wadaad noqday oo fanki iyo wixii diiday oo isaga dhax baxay, waa la gartay. haddaba labadii laakiin kama muuqato markii aan akhriyay warqadan aan si fiican u fiiriyay, labadiiba kama muuqato. labadaas marka in waa macnaheeya Hatuf maanta uu duq ma ahan, waa nin dhalinyaro maasha Allah, ma joogo xilli uu ku qaadan karo retirement. janal heer sare uu ka gaaray, waa janaalada ugu sareeyo ka mid yahay Soomaalida oo YouTube ka isticmaalo. 130 milyan waa wax ma ahan fudud oo ciyaar iyo 1 day 2 day 3 days 4 days, like even 5 years lagu waa adagta sida lagu gaaro, waa hawl adag allo mara. laakiin dabaq ina distid waa iska soo tuuraya, macquul ma noqonayso. eeday way in laga soo tuuro ma ahane, ama in aad adigii nafsad ahaantaada ka dhimatid ma ahane, way adagta. laakiin dibka jirta waxa maanta aniga hadii wax igu dhacaan cilad igu dhacda ama channelkayga dhibaato la soo gudboonaato, waxaan sameeyaa straight YouTube kan ku qoraa dhibaatada channelkayga exactly ku dhacday. soo af Soomaali ma raadiyo, ilaa waxaan ogaa inaan ka helina soo af Soomaaliya, maxaa yeelay dadkaygi ma jecla inay dhibka ku dhacaan soo bandhigaan ama ay dadka la share gareeyaan. saas la adligeed baan waxaan u raadiyaa cunug ajaanibe ama cadaane dhib ku dhacay channelkiisu
si aan ugu faa'iideysto dhibaatadaas aniga ay haysato uga xalin lahay haatuf maanta dhalinyar badan baa ku dayanayso maasha allah dhibka ku dhacayna markaan idin sheego aan nafsad ahaanteedana aan baaritaan ku sameeyay waxay tahay waxa jira YouTube wax la yiraahdo fake viewerska ama dadka isticmaala fake of viewerska oo daawashada badan video waa laga daahad bas u garanaysan aniga tusaale video gaana daawanaysan oo kala hadii aan rabo inaan 1 million 2 million gaarsiinayo waan soo gadanaya kadib waan gaarsiinaya marka YouTube sharcigaas ma ogolo wuxuuna sameynayay qofkii fake viewerska isticmaala in uu channelka lacagtana ka xanibo videogana ka saaro sharciga asigoo jiray laakiin software-kii baa updating lagu sameeyay oo kaasoo ah qofkii markuu isticmaalo lagu arko automatic videogana ka saarayo lacagtina ka xanibayo my brother haatuf waxaan ku aragnay haddaba si aad ula socotaan heystii Guleed Simba iyo heystii Marwan intiba hawada laga saaray oo taasoo ahayd in uu isticmaalay fake views ayb ma fake views bal ila daawada videogan intii isticmaashay fake views ka in tusaya YouTube is cracking down on fake views, as you might have heard before, but what you might not have known is that the music industry is apparently like one of the biggest frauds when it comes to this. And so they're cracking down on literally billions of fake views on a couple of the major music labels' channels. And so we have some info for that. The most shocking one, first off, is Sony BMG, which is going down from 850 million views to 2.3 million. ayb ma waa la isticmaali karaa laakiin nafsadaada qiyaamaysa waa runta marka laga hadlo marka anigu waa idin jecelnahay dadka wax duuba Soomaaliyeed waxaad tihiin dad bulshada Soomaaliyeed marka ay timaado entertainment mar walba garab taagan dad xunamatiin ee naga ilaaliyo waxyaabaha nafsadiina hoos u dhigayo iska dhiga dad adag if things goes wrong don't give up waxaas dhan baniida gashan janaalkan shala waa asaastay birina waa asaasaysa ma garanay barnaamijkan soo ku dhamaan doono laakiin aniga tala ahaanteeda waxaan u soo jeedi lahay in uusan joojin my brother haatuf oo janaal cusub samaysto oo hooshiisa meeshiisa ka sii wado oosan isdhihin adeer 268 qof baa within one day ku wayn doontaa ama lacagti xun baa laga gooyay YouTube wuxuu ku faa'iideynaa malahan ama inta mid cusub sameynayso waqtiga qaadanaysa ama dadkaaga soo subscribe gareynaya ama waxyaabo noocaas inuu niidi isla geliyo waxaan within one day dabaq lagu dhisaa male wax walba dulqaad bay u baahan yihiin tanna experience ku taa 10 dhacay waay waxaan wax dhacay waay waana qorneed ma ahan inaad automatic go'aan degdeg iska qaadatid ileen bulshada maanta ku baahan oo ku wada sugayso marka aad baan u maasintaa asxaabteeda qaaliga saad u daawateen message-kii waxaan qabanaa aniga my brother qofaan wax u qarinaa male waxaan jeclaa mar walba bulshada Soomaaliyeed in aan la wadaago wixii jira ama wixii dhacay oo muhiim ah bulshadeena oo ah wax goolkeygana waxa waay in aan wax la iska qarin marka ay timaado social media qof walba dib buu haystaa laakiin marka ay timaado software ina dibkii la soo bandhigo la isla wadaag si aan kuwa dalka joogo waxay u baahan yihiin dhibaatada u baahan yihiin ee ugu soo qoraan halkan ee af Soomaali ugu baxay ee ka helaan marka qof walba wax ku dhaco ama janaalkiisa dhibaato ku dhacdo hala baqino soo bandhig walaalayaal aad baan u maasantiin so guys see you the next episode my beautiful people bye